السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadan doonaa cashar uu hordhaciisu noqon doono integralska ama abyoonayaasha sida luqadda Soomaaliga lagu yiraahdo. Marka casharkan wuxuu noo noqon doonaa hordhac isagoo si fiican iyo tusaalooyin badan anaka soo qaadan doona baan casharadan soo socda aan uga shaqeyn doonaa. Marka hore maxay yihiin abyoonayaashu ama integralsku maxay yihiin noocyo ma leeyihiin kuwaas ayaan ku hormari doonaa. Marka hore abyoonayaashu waxaan dhigi karnaa waxay ka kooban yihiin saddex qaybood baan kala qaybin karnaa. Waa marka hore waa zero, positive iyo negative. Ayaa positive iyo negative numbers iyo zero ayaan u kala qaybin karnaa. Marka chantuskii waxaan sawiray marka eber waxaan dhigaynaa in maadaama uu eberku yahay mataqan uusan ahayn positive uusan ahayn negative uusan ahayn bartamaha dhigaynaa laba qaybood oo midig iyo bidix baa u kala qaybeynaa. midigtu waa wixii positive ah halka aadaya waa 1 2 3 4 5 6 saa u sii wad wixii positive dhan dhinaca midig iyo waxay xigayaan eber, dhinaca bidixna waxa xigaya negative integralska ayaa xigaya oo waa -1 -2 -3 -4 ayaan dhigi karnaa. Marka eber wixii midigta ka xiga oo ah positive integralska waxaan dhigi karnaa mar walba oo dhanka midigta u sii socdaan tirooyinku way sii badanayaan, awoodoodii baa sii badanaysa. oo ogtahay de 1 iyo 2 awood badan, 2 3 ka sii awood badan, 3 4 macna markaas ay tiradu dhanka midig u sii socoto oo dhanka positive ka ah tirada maxaan dhigi karnaa way sii awood badnaanayaan baan dhigi karnaa. Dhanka bidix hadda eegno eberka meesha dhinaca bidix waxa ka xiga negative integralsku markaas oo dhinaca bidixda u socdaan way sii daciifayaan -1 iyo -2 macna waxa ka dhigan tahay adoo markii hal door lagu leeyahay iyo markii laba door lagu leeyahay waa kala fahmi kara kala culays badanta. Marka mar walba dhinaca bidix loo sii socdo minuskaagu mataqana uu sii badanayaa. Sidoo kale macnaha waa aad buu u kala daciifsan yahay marka sidaas weeye. Marka halkan waxaan ku sheegi doonaa zero-du inaysan ahayn positive iyo negative midna ma ahan. Marka waxaan dhignay meesha u dhaxaysa ayaan dhignay. Casharkan hordhac ma noqonaya maadaama casharada isagoo example-ladii iyo wixii la soo kala qaadanayo aan dhigi doono. Su'aasha ugu koowaad waxaan dhigi karnaa ardayga waa la weydiin karaa macallinku tusaale ahaan buu u weydiin karaa haddii aan u dhaqaaqno 2 mar ama 2 jeer dhanka midig haddaan u dhaqaaqno lambarka 3 anagoo taagan lambar 3 anoo taagan lambar 3 waa kan anoo lambar 3 taagan oo positive ah baa ka hadlayaa haddaan 2 jeer dhinaca u dhaqaaqo dhanka midig u sii dhaqaaqo tiradee baa ii soo baxaysa baa la weydiin karaa. Marka lambar 3 baan taaganahay Soomaan lambar 3 baan taaganahay maxaa laga rabaa kii 2 jeer inaan dhanka u wareego. Marka waxay noqonaysaa 1 iyo 2. marka jawaabta ii soo baxday muxuu noqonayaa markaan 2 jeer ama 2 god aan u dhaqaaqo 2 god baa u fiican in la isticmaalo. haddii aan 2 god u dhaqaaqo dhanka midig lambar 3 anoo taagan haddaan 2 god dhinaca u dhaqaaqo midig lambar tiradee baa helaya. marka tirada aan helaya muxuu noqonaysaa xadaysa marka hore isaga dul istaagaysaa 1 waa 4 buu noqotaa hal god baa dhaqaaqday haddii godka labaad dhaqaaq 2 baa tiri oo lambar 5 buu noqon. marka jawaabta waxay ku soo baxaysaa 5 positive ah ayay ku soo baxaysaa. marka su'aalaha qaabkaas kale waa uga jawaabi kartaa macallimiinta ardada bilowga hore way weydiisaa ama xataa waxa lagu dhigi karaa adoo lambar 2 taagan haddii aad 3 god dhanka midig u dhaqaaqdid muxuu noqonayaa kaliya wuxuu noqonayaa xadaysa lambar 2 baa dul istaagaysaa 1 2 3 adoo soo tirinaya baa maxaa baa dhanka midig 3 u dhaqaaqaysa marka iyadana 5 bay noqonaysaa haddii adoo lambar marka waxaan nidhi markaad dul istaagtid lambar 2 baa 3 god waxa u soconaysaa dhanka midig waxaan nidhi 1 2 3 hadhow tirada wax noo soo baxaysaa tirada 5 ayaa noo soo baxaysaa. haddaan example-ka ugu dambeeya aan soo qaadano markaan dhanka eegna waxa weeye dhanka midig oo positive integralska baan eegnay. hadda su'aasha waxaan weydiin karaa haddii aan 3 god u dhaqaaqno dhanka bidix -2 macna anagu -2 taagan -2 halkee waa kan weeye. marka -2 anagoo taagan haddaan 3 god aan dhanka u dhaqaaqno tirada aan helayno waa tiradee. marka waxay noqonaysaa adoo -2 taagan waxa dhahaysaa 1 hal god baa dhaqaaqday 2 godkii labaad baa dhaqaaqday 3 waka 3 jeer baa la amray soo 3 god
marka anagoo -2 taagan haddii aan 3 jeer aan dhaqaaqno tiradee baa helaynaa -5 baa helaynaa. marka sidaas baa lagu heli karaa anagoo macnaha -2 taagan haddii aan 3 jeer dhaqaaqno 3 god aan dhaqaaqno maxay helaynaa -5 ayaa helaynaa. marka casharkan wuxuu noqon doonaa cashar hordhaca casharka inta badanna casharka bilaabayna waxa u sameynaa hordhac si aysan ardayda ugu wareerin. marka su'aalaha ugu muhiimsan mataqaanaa casharka aan u keenay waxaa weeye ama muhiimka u tahay arday inuu kala fahmo in aboonayaashu ama integralsku ay u kala baxaan ama ay noqon karaan 0 positive iyo negative in numbers inay kala noqdaan. sidoo kale 0 inuusan ahayn positive iyo negative midna uusan ahayn inuu ka ogaado iyo in su'aalahan qaabka looga xallin karo oo markii loo intaa god soo dhaqaaq waa inuu ardaygu fahmi karaa. taas baa ugu muhiimsan casharadana kalena wixii important ah hagaasa ku soo qaadan doona insha Allah.